ayadoo maanta ay taariikhda ku beegan tahay 25 bisha Tobnaad 2017 ayaa lagu soo dhaweeyay ciyaaryahanadii matalayay maamul goboleedka Jubbaland kuwaas oo lagu soo dhaweeyay garoonka weyn ee diyaaradaha ee Kismaayo International Airport halka shacabka ku dhaqan magaalada Kismaayo isku soo baxay inay soo dhaweeyaan ciyaaryahanadii matalayay maamul goboleedka Jubbaland ugu dambeyntii waxaa si habsami leh goobta uga hadlay madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe wuxuuna ku bogaadiyay ciyaaryahanadii matalayay maamul goboleedka Jubbaland inay soo hoyaan guulal kale waxa sharaf weyn ah maanta inaan halkan ku soo dhaweeyno annaga oo mas'uuliyiintii iyo shacabkii reer Jubbaland gaar ahaan reer Kismaayo ay maanta wada joogaan garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo xarunta ku meel gaarka oo la soo dhaweynayo xulka ciyaartooyga Jubbaland iyo macallimiintooda iyo mas'uuliyiintooda iyo munaasabada ay ahayd koobkii ciyaartii labaad ee bilowga ciyaaraha dawlad goboleedyada tartankooda oo sanadkii labaad oo ay noqotay inay nasiib u yeelato Jubbaland inay qaaday iyadoo sanadkii koowaad ee ciyaaraha la bilaabay Puntland ay qaaday waxaan leeyahay waa mid sharaf weyn oo ah xulkana aan ugu mahadcelinayo ciyaar wanaagga akhlaaqda wanaagsan iyo isku xidhnaanshaha ciyaartooda oo bacdalaahi ka sokow ay sabab u ahaayeen iyaga iyo macallimiintooda dadaalkii ay muujiyeen inay u ahayd sabab intaasoo dhan waxaan rabaa inaan xuso macallimiintoodii gaar ahaan Ariidi oo ahaa waayo arag soo ciyaaray soo ahaa macallin taariikhda ciyaartii maroodiga gobolka Jubbada Hoose magac ku soo lahaa iyo asxaabta kale waxaan rabaa inaan saaxiibkay u sheego rag badan oo xulkii Jubbada Hoose ahaan jiray oo soo ciyaari jiray maanta inay garoonka joogaan oo saaxiibadii oo qaarkood aan koobka u dhiibayay waxaan rajaynayaa mar la kaftamayay baa waxay ahayd ra'iisul wasaaraha wuxuu yiri Kismaayo 8 xaraf bay ka koobnayd 8 xaraf way dhamaadeen Jubbaland baa 9 xaraf ka kooban xarafkii 9aad koobkan oo ahaa intaas 9kii ugu dhantay waxaan rabaa inaan taa kaftankeeda ku bedelo Jubbaland 9 xaraf bay ka kooban tahay koobkii koowaad baa la bilaabay 8 kala dhiman insha Allah waanu mahadcelinayaa xildhibaanada iyo senatarada dad badan oo maanta koobka wax ka soo sagootiyay gabdhiyo wiilal bale oo fadhiyood garanaysaan iyo intii gobolka Banaadir joogistiisii dawladda federaalka iyo xubnihii kale xafladihii qiimaha lahayd loo qabtay intaba waxaan rabaa inaan aad ugu mahadceliyo waliba prime ministerka iyo mas'uuliyiintii guud ahaan ka soo qayb gashay waxaan rabaa inaan xuso waliba gabadha wasiiradda dhalinyarada iyo isboortiga Khadiija oo iyaduna door fiican ka ciyaartay abaabulka iyo isku dubaridka waxaan rabaa inaan iyagana u sii ambaliyeeyo rugta ganacsiga Soomaaliyeed oo casho sharaftii ugu badnayd xamaasadda lahayd ku qabtay magaalada Muqdisho oo iyaguna lahaa mataqaanaa gogosha ay dhigaan casho sharaftaas la isugu wada yimid qof kasta oo ka qayb qaatay gobolka Banaadir gaar ahaan xaafadda ay deganaayeen oo gudoomiyaheeduna oo shaqo wada iyo guud ahaan gobolka Banaadir oo gudoomiyaha gobolka iyo duqa caasimadda taabid ugu horeeyo kulli waxaan leeyahay intii ka soo qayb gashay iyo intii wax ka sagootisay iyo intooda mahad bay leeyihiin Ilaahay bayna mahad guud ahaan u sugnaatay laakiin mahad guud aan soo ururinayo tiimka ciyaartooyga iyo macallimiintooda iyo wasaaradooda iskale aad baan idinku mahadcelinayaa kulamo gaar ah yeelan doona aniga ciyaartooygu kuwaas aanu si dhiib leh uga hadli doonaa waxa ama iga filayaan ama aan kula hadli doona haddii Ilaahay yiraahdo markii hore la hadlayna maana sameyn balaqaadyo badan oo meelaha qaarkood laga sheegayo ninkii gool dhaliyay iyo ninkii ka yaala waxaan ilaalinay isku xidhnaanshaha tiimka maantana meel fiican bay soo gaareen oo wada hadlaynaa iyagana insha Allah aad baad u mahadsantiin tiimkii jiray joogana insha Allah si kastaba ha ahaatee oo markii labaad oo xiriir ah ay soo gaaraan ciyaartii kama dambaysta oo loo yaqaano finalka Maxamed Abdulqaadir Axmed telefishinka caalamiga ah GTN maamul goboleedka Jubbaland magaalada Kismaayo.